magac misnaanees ayaa jirto oo laga bixiyo dalka Ingiriiska magacaasna waxa la yiraahdaa Sir Mrs. dad badan ayaa haysto waxaana kamid ah dadka haysto wiil Soomaaliyeed oo magaciisa la hayo Mo Faarax marka kaalay taariikhdaas mise magacaasna aneestaas wallahi sir waxaan ka ogaano hadda jeceshay inaa ogaatid fadlan kaalay ka dhameeso mise ka daawo TV-gayga mise channel-kayga YouTube-ka Al Nasr Salahuddin Al Nasr 711 halkaas noo balana mise Facebook-gayga Al Nasr Abdinaasir dhax imaawdi halkan waa meel ciyaaleed daawo baahan tahay inaad dhameystid mise barnaamijka dhameystiran ee daawato fadlan kaala soo booqo TV-gayga mise channel-kayga YouTube-ka Al Nasr Salahuddin Al Nasr 711 mise Facebook-gayga Al Nasr Abdinaasir fadlan ugu darso فضلا هموغان ودرسو الناصر عبد الناصر فيسبوكيغا امسي الناصر صلاح الدين الناصر 711 dadka degan qaarada Yurub oo haysto diinta Kiristaanka wixii ka horeeyay sanadka 1000 wixii aaminsanaa jireen hadii la gaaro sanadka 1000 wixii aaminsanaayeen inuu soo laaban doono Jesus Masiix alayhi salaam waxa laga dhaadhacsiiyay hadii la gaaro sanadka 1000 in adduunka ayaga ay qabsan doonaan ee taajir doonaan oo soo laaban doona badbaadiyihii sugayeen Ciise alayhi salaam balse waxa dhacday in la gaaro sanadkii 1000 Ciise soo laabay markaas waxa dhacday dadkii badan Yurubayada ahaa oo kaniisada hoostagi jiray kaniisadana ku hoos noolaa oo diinta Kiristaanka aad u aaminsanaa inay niyajabaan ayna ka aamin baxaan ee ku yaraato kalsoonidii ku qabeen kaniisadahooda markaas ayaa waxa dhacday nin waxa jiray oo baadari oo weyn oo kaniisadaha Kiristaanka haystay iyo kaniisada Catholic magaciisa la hayo Abroom wuxuu yiri inta dhulka wuxuu dhahay oo barakeysanaa Ciise ku soo laaba laha waxa haystaan muslimiin marka dhulkaasi Qudus hadii muslimiin haysato lagama yaabo inuu Ciise oo soo laabto maxaan sameynaa waa inaan dhulkaas xurayna markaas ayaa wixii la imaada fikirkaas oo ah sanadka markuu ah 17 waxa la aasaasay dhaqaaqa mis waxa la aasaasay urur samafala ah kaasoo loo diray dalka Falastiin meesha loo yaqaan Qudus magaalada ayaa loo diray magaciisna waxa la hayay Hasbitaar kuwaasoo ahaa samafalayaal halkaas waxay ku tageen samafalayaal ku tageen dowladda Islaamkana markaas meeshaas haystana way ogolaatay in meeshan imaadaan ee samafalkooda meeshaas ay ka sameeyaan ee ka dhistaan MGO mise ka dhista isbitaal oo lagu daaweeyo dadka xujaayada oo ka imaanaya wadamada Yurubta mise dadka oo dhaawac ka soo gaaray dagaalada markaasna waa taqaan dowladda Islaamka oo markaas jirtayna way daciiftay oo markaasna Yurubayda ay waxay ka faa'iideysteen inay soo weeraraan markaasna waxa dhacday dagaalkii magaciisa la hayay al-Hurub as-Salibiyya sanadka markuu ahaa 1996 markuu ahaa waxa soo weeraray magaalada Qudus wayna qabsadeen wayna ku guuleysteen marka hay'adii sanfalka ee magaceeda ahayd Hasbitaar wuxuu isku bedeshay quwad dagaal macna ciidamada noqdeen military ah waxayna ka qayb qaateen xoreynta magaalada Qudus in laga saaro muslimiinta laba usbuuc ku jireen dagaal laba usbuuc waxay dileen in ka badan 70,000 oo qof waxaan hogaaminayay nin magaciisa la hayo Hugo Benz markaas waxay u tageen ee ka codsadeen maamulaha sare masduuqa magaalada Qudus nin magaciisa la hayo Baldwin-kii labaad waxay ka codsadeen inuu meel dejiyo wuxuu dejiyay qasriga asiga oo deganaa oo u dhawaa Beytul Maqdis wuxuu u dhawaa masaajidkii oo barakeysnaa meel u dhaw ayuu deganaa halkaas ayay degeen intaas ee meeshaas deganayeen waxay la kulmeen arrimo yaab leh waxa loo sheegay laga codsaday in ay raadiyaan meeshii ku tukanayay Nabi Suleymaan alayhi salaam waxa loo sheegay kitaabka Kabaalaha iyo meeshuu ku tukanay Nabi Suleymaan iyo meeshuu ku jiro bikari ugu dambeeyay Nabi Ciise wuxuu ku cabay inay tahay Masjid al-Aqsa hoostiisa marka waxa lagu amray inay qodaan ee kala soo baxaan alaabta raadinayeen markay halkaas tageen ay qodeen way heleen intii halkaas ay ku jireen waxa uu imaaday oo si toos ah u arkeenbo Iblis wiilkiisii arkeen ninkii la magaciisa kaga sheekeynayay Baphomet ayaa la kulmeen Baphomet ayaa meeshii ugu dhax imaaday asaga ayaa wixii ka codsaday ka dhaadhiciyay wuxuu u balan qaaday inuu ka dhigayo dad oo maalqabeena ah maadaama ay yihiin ciidamo oo faqiiriin ah balse waxa muhiim ah horta mid ugu horeyso sharadka ugu horeyso ayaa waxay tahay in asaga ay aaminaan ay ka dhigtaan ilaahooda إن أسجودان أو مرتين إقاطان وح الله وحكى عصدنا إن أفوليان مركزي بلابين إن أسيع عبودان وحين نقضين تد أيجا سكول لابتو هذا فهم يسد معناها أي سكول لابتي معناها قصب وكأجد جاي إن سكول لابتان دي وفهم يسموه يا فؤاد ميك اب فهمتي مركو حير هالسكول لابتو يري سمايستوي حين marka taasa dhacday asayna caabudeen waxay noqdeen dad diintaas haysto marka waxay noqotay muhiimadooda ciidamo loo soo daraybo xasuuqa masbaabeynta muslimiinta
awood sare yeesheen waxay noqdeen taajiriin waxaana loo furay sanduuqyo badan oo looga dhex furay kaniisadaha ku yaala Yurubta taasoo la hayay waa taakulaynta ciidamadii Ilaahay iyo ciidamadii oo xujaayada badbaadinaysay marka shaqadooda waxay ahayd inay badbaadiyaan xujaayada ka imaanayso wadamada Yurubta una soo xajinayso meesha ayaga ay aaminsan yihiin in loo xajinayo oo magaalada Qudus meeshaas inta u dhaxaysay dadka xujaayada ayay badbaadinayeen marka security-goodii ahayeen marka waxay noqdeen ciidamo adag وين أتكاذين عاني النقدين مركو حين عظم أد وتوبرن توبركون أو أدي أد هل سوية هاي وحينها عظم أو أهم سن دين كريستانك وحينها من سنايين هدي ودنتو أصوب بدبادينا دفاع حجايدة بس أصوب ودق على ما دين تيسا إنه قال أيو جنو أبو الشباب كي ومتقان علامة سوقات الأول شو مدوا مركا وحينها عظم لقبقو أنا أود له meel kasta ayaga haystay marka xataa waxa la siiyay Yurubta xataa waxa laga siiyay sulta ayaa la siiyay waxay noqdeen dad awood badan leh oo laga baqayo noqdeen magacooda meel kasta uu gaaray ganacsataan way noqdeen xataa waxa la siiyay dhul badan la siiyay beerley noqdeen marka waxay ahaayeen dad kor ka ah Kristaan oo dadkan u muujinaya inay yihiin Kristaan laakiin hoos ka caabudayo Baphomet iyo sheedaankooda saas oo ahayd sanadka markuu ahaa كن بقول سديتني تطبدي وعلى أتكاذي وين أقول درستين وحا أتكاذي مش أسقبصدي ولا وريجة مركلة دجاليها كي وينا الناصر صلاح الدين الأيوبي نكسي مش قبصدي أسأل أقول لستي مركع إذا ما ضاني أقول لها فردولي ذا مثل فرسان الهيكل مثل فرسان المعبد وعرين وبحصدين إلا إكتجن مجال مجال الله عكا تجين كدب نولسي عرسدي مركز سنة مركوها كل لو بقول يسقاشن يكوي نين الله خليل بن خلون ayaa ka adkaado fiijiyay oo tirtiray way si baxsadeen waxay tageen Bruce kadibna waxay galeen Faransa halkaas markay tageen dad waxay noqdeen oo aan qiimo lahayn xagga military laakiin waxay qiimo saameyn ku lahaayeen dhanka dhaqaalaha iyo maalqabeennada dad badan ayaa lacag ku lahaayeen waxaana kamid ah boqortooyada dalkaasi Faransiiska boqorkii magaciisa la hayay boqor Philipkii afraad waxa dhacday xataa maalmaha kamid ah in boqorkii Faransiiska ninka la magaciisa Philipkii afraad oo ay ku dhacdo shacabka ku kaco lagu sameeyay kacdoon oo baxsada u carray wuxuu tagay kaniisad mise meel ay deganaayeen si xarun kamid ah xarumaha ay leeyihiin dadka magacooda la yiraahdo fardowleyda meeshooda tagay oo dhuumanay marka halkaas oo galo dhuunto wuxuu arkay wax oo ka yaabay lacag wuxuu arkay xadaafa wuxuu arkay lacag iyo dahab iyo luul iyo dheeman meel kaas iska daadsan taas markaas soo baxay ciidamo soo kaxistay guuto badan oo soo kaxistay halkaas dadkii oo qabtay kulligood wixii fardoolay hadna soo qabtay oo kamid ahaa groupkaasi waa la soo wada qabtay kulligooda maxkamadda saaray woonu eedeeyay wuxuuna ku eedeeyay inay yihiin dad oo qomluud ah macna jab gadaalaan inay yihiin ku eedeeyay inay yihiin dad oo aan ahayn Kristaan oo sheedaanka caabudayo oo ku tufi candhuuf saliibka mismacnaha استلابكي عن روف الكتفين مركب حين دتك عنيه وحيري وابتد شيدان كعابدو وهنا قرتين وحيري هذين ها أنا مركب نلقات كذا مسلمين نلقات كذين أيام بحناقني إله عملنا وحنو تروي عمل استغفر الله العظيم كلها بالك سعابدنا كيو عدوي سعابدنا وكلا marka sanadka markuu ahaa 1312 baadari guweyn ee Yurubta miskaantirada Kaatooliga nin magaciisa la hayo kalaminta ayaa wuxuu soo saaray in dadkani la baabi'iyo meelahooda mise goobaha ayaga ay leeyihiin sanadka markuu ahaana 1314 waxaa la qabtay dadkii ayaga meeshaas ku wada jiray oo hogaaminayay nin ayaga oo ugu sareeyay magaciisa la hayo Diimooley iyo groupkiisa waa la qabtay waa la gubay inta marka ninka Allah Diimooley aal gubin ayaa wuxuu yiri Philip adee kalminti wuxuu dhahay maalinta qiyaamaha ayaa noo balana ilaa xigsan mataqana asku arki doona lacnadooda ku dhici doonta marka waxa dhacday 6 bilood kadib ninkii Ilaahay kalminti inuu dhinto ninkii Ilaahay boqor Philipna isla sanadkaas maalmo maarad kadib inuu dhintaasna saas oo kale amalaya lacnadiisa inay qabsatay oo inkaartiis la aqbalay marka waxa si dhacday in aan la joojin oo la sii raadiyo goobihii la hayeen oo lacagaha u taalay waa la baxay waa la daba galay markii la baxay la raasay oo la tagay meelihii goobihii ayaga la hayeen waxa lacag waa laga waayay xataa waxa la fiiriyay kadihii la fiiriyay meelihii u yaalay maraakiibta iyo doomahooda waxaana taalay markii hore 18 markab laakiin markii la tagay hal markab xataa moosan oolin marka waxa dhacday inay baxsadaan ay si aadaan dhanka meel la yiraahdo Portugiiska ilaa iyo Scotland ay tageen halkaasna markay tageen waxay ka asaasteen haddana group cusub oo magaciisa la hayo The New World Order mise Freemason macnaha kuwii oo wax bedelayay iyo kuwii wax dhisay cusub
saasoo kale waa macnaha meeshaasay tageen ee ka asaaseen kadibna si u sii socotay halkaasna waxay bilaabeen inay samaystaan gruubo badan ee u shaqeeyaan si oo qarsoodi ah ilaa laga gaaro sanadka markuu ahaa 1776 May koogeeda mise bishanaad koogeeda sida adduunka hadda loo yaqaano maalintii shaqaalaha iyo shaqada adduunka maalintaas ayaa waxaa dhacday inay kulmaan 13 nin oo ah taajiriinta oo yahuuda ayadoo uu hogaaminay nin magaciisa la hayo Rothschild meeshaas ayay way kulmeen waxayna ku heshiiyeen inay dhistaan waxa la yiraahdo Illuminati macnaha Masiix Dajaal groupkiisa kuwii caadiga ahaa meeshaas ay dhisteen in asaaseen markaasna waxaa la bilaabay adduunka markaasna dawladda la Faransiiska boqortooyadaas ayaa ahayd boqortooyo muhiim ah waxaana la yiri tan aan ridno boqortooyadii markii waa la riday laakiin waxaa dhacday arintooda inay fashilanto warqadahoodan waa la qabtay ciidamadu waxa qabteen markaas boqortooyadii oo Jarmalka qabteen saasayna ku fashilmeen marka waxaana ahaa ninkii ayaga asaasay madaxooda nin oo wuxuu halahayay Eisenhower waa la qabtay waana la xiray laakiin waa la soo daayay groupkiina waa la baabi'iyay waxaana la lahay meel oo ayaga ee la doonaan malaha arintooda saas lagu fashiliyay marka waxay bilaabeen markaasi wixii ka dambeeyay ilaa iyo 900yadii in oo arintooda ahaato mise kulamadooda mise meelaha ay ku cibaadaystaan isku arkaan meel qarsoodi ah laakiin wixii ka dambeeyay 900yadii ayaa waxay noqotay in goobahooda mise meelaha ayaga oo ay leeyihiin kamerooyinka xataa la geeyay dadka xataa qaar loogu waco kale arka marka waxa kaga sheekeynayay waa the new world order mise Illuminati oo adduunka haysto mise kuwa u diyaarinayo adduunka inuu soo baxo Masiix Dajaal qaybtii ugu dambeysay oo groupkaasi oo la fardooleedii Malta kadib ay noqdeen mise fardooleedii Yuhanna markay noqdeen si baaba'ayeen intaysan si baaba'in oo la qabanin waxay u carreen meesha adin sheeg Malta markay tageen 2022 ayaa ayagana la kansalay magaca fardooleedii oo Malta waxaana kansalay baadariga hadda haysto Katoolikada marka Mo Farah wuxuu wataa naanaystii fardooleeda kuwii kristaanka xataa ay xasuuqeen oo gubeen oo la hayay shaydaankii caabudaan mise kuwii oo la hayay Freemason mise Illuminati mise Acwar Dajaal groupkiisa mise kuwa adduunka haysto kuwii Mo Farah calaam saaray ilaa Ingiriiska haysto reerkaas kaliya ayaa dadka loo wakiishay inay calaam saaraan marka bilada oo la siiyay Mo Farah mise magaca oo wata naanaystiisa oo la hayay sir macnaheedu waxa waaye fardooleeda macbadka فرسان الهيكل كل دهوايه أنا أهانجري دتك بدباديو وارديو حجايدة أو كحججرت ودمدا يوروب وين حجنيسي قدس لكن درت مركز كل عين مركز كل أساس مقطع هذا كل عدان أفراه جلسها وكو قرحيسها يبو مرك مو فرع بحبوا ديدي سامين ويلوا أملايا ولا قرحي دبعت هذا هاي ستو أنا إلهي هرون وقول شيء وحوري ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهود كريستيان كرالي كما نقول أيان إلا أذيك أتكرعضو بس أتكجمين نقطه وحي أيجا مسين مسمى الله وضع مركا حدادا قاعدا فكر كود أيجا كم يدنقون خبرت إذا كتاي معلم بي